الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ودرسي أفريا طبنات آدابتا waxaan noo soo dambeeyey darsi ku saabsan xanta iyo axkaamteeda. darsigii hore waxaan ku gabagabaynay xadiis daciifa oo imaamku kitaabkiisa ku soo arooriyey oo dhahayo quuluu fi lfaasiqi maa fiihi yaxdarhu nnaas. faasiqa ka sheega wixii ku sugan oo xogtiisa bannaanka keena si dadku uga digtoonaadaan. xadiidkana waa soo sheegna waa daciif. wuxuu daba dhigay walaa yudannu bicumara, cumar bn khadaab lagu malayn maayo radia allahu canhu, allah ka raadi noqday, annahu aqdama calaa maa huwa giibatun, inuu galay wax xan ah cinda nasihi markii uu caddaynayay calaa sittati lixdii, wa jacli shuuraa cinda jacli shuuraa, shuurada iyo wadatashiga markii uu ka dhigay fiihim lixda dhexdooda. xayثu dakara cayba kuli waaxidin, xayثu meel dakara uu sheegay cayba kuli waaxidin mid kasta dhaliishiisa, bal qasada wuxuu ula jeeday, bal qasada wuxuu u muraaday bidaalika sheegistaas annusxa lilah, ilaahay inuu u khayr miiro, walirasuulihi iyo rasuulka alleh, iyo waliahli lislaam, islaamka ehelkiisa. meeshaan wuxuu leeyahay amiiru lmu'miniin cumar bnu lkhadaab markii la dhaawacay ee uu calaa firaashi lmowt saaraa uu dardaarmay dadka talada qabanayo oo ummadda u talinayo booskiisa istaagi doona. 6 saxaabada ka mida ayuu yidhi lixdaani ha ka tashadeen, guri ka mida guryahooda ha isugu tageen, 3 beri shuuradu ma dhaafi karto, 3 beri waa inay kusoo gebangabeeyaan, 6dooda mid ka midana waa inay madaxweyne ummadda uga dhigaan. marka wuxuu leeyahay nin la dhihi jiray axmed ibnu yaxya ibnu jaabir albalaaduri oo ka mida culummada taariikhda wax ka qorta, waa qarnigii 3aad 279 dhintay. waa nin taariikhyahanahoo ka mida culammadii muslimiinta waqtigaas joogay, ayaa wuxuu qoray qiso aan saxiix ahayn oo baatil ah. qisadaas waxay ka hadlaysay cumar markuu 6dan ka dardaarmayey muxuu yidhi, kana ceebtaasuu leeyahay, kana dhaliishaasuu leeyahay, kana dhaliishaasuu leeyahay, kana dhaliishaasuu leeyahay. marka ha ka tashadeen, qof gooniya ma saari kara taladaas. marka arrintaasu ishaaraya qisadaas marka ayuu tilmaamayaa imaamku. cumar lagu malayn maayo inuu xamanayay nimankan markuu ceebtooda sheegayo lahaa nin walbaa dhaliishaasuu leeyahay. danta uu ka lahaa waxay ahayd in muslimiintu madax u suubata madaxtinimada ay helaan, saasuu ula jeedaa. laakiin qisadu sideeda sal iyo raad ma laha, waa baatil, qiso sugan ma ahan. inkastoo nin imaamuhu uu soo arooriyey qiso sal iyo raad lama ahan. imaam albukhaari wuxuu wariyey saxiixiisa in lagu yidhi amiir almuminiin markuu dhaawac ahaa, awsi ya amiir almuminiina istakhlif, qof ummadda madaxweyneha uga tag oo kala dardaarto tiraa hebel ha laga dhigo madaxweyne marka anuu dhinto. markaas wuxuu yidhi maa ajidu axaqa bihada alamri min haulaai annafar aw irahd aladiina tuwufiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa canhum raadin. ma ka dhex helin dadka dhexdooda markaan saa u fiiriyey wax ka mudan arrintan inay taladan hoggaanka u qabtaan kooxdaas aan soo xulo 6da oo nabi maxamed la oofsaday sala allahu caleyh wasalam asagoo ka raadiyo ka qanacsan raggan. meeshaan wuxuu bilaabay inuu soo khulaaseeyo warkii horay uu u soo faahfaahiyey. wuxuu yidhi faslun fasaarat alghiiba, ghiibadii ama xantii waxay ku soo aruurtay maa yudkaru wixii la sheegaayo oo min annaqsi waalcayb, dhaliil iyo nusqaan ah, oo laa yuqsadu bihi aan lagala jeedin oo danta loo sheega aysa ahayn ila alisdiraa'u cala almadkuur, in la yaso oo la xaqiro midka laga sheekaynaya maahan, dan kale aan laga lahayn, iyo watacnu duritaan fiihi la duraayo. meeshaan wuxuu leeyahay xani waxay ku soo aruurtay marka wixii laga sheego qof oo ceeb iyo dhaliil ah, danta laga leeyahna ay tahay asaga in hoos loogu dhigo oo lagu liido ee la duro. imaamu nawowiya wuxuu leeyahay kullu maa afhamta bihi gayraka nuqsaana muslimin fahuwa ghiibatun muxarama. wax kasta oo aad ku fahamsiinayso dadka kaleeto qof muslima nusqaantiis waa xan xaaraan ah, ama ficil ha ahaato, ama ishaaro ha ahaato, carabka laga daba taago ha ahaato, far lagu fiiqa ha ahaato, war adugu aad qurxi tagaysid laakiin danteeda meesha ku horsato la yaqaan inay tahay qofkaas in la dhaliilay ha ahaato.
وحوليه وغيبة محرمة. ابن القيم وحوليه فرق أدحية نصيحة قف لو نصيحة إيا حنت الله حنته وحوية نصيحة دانت اللي قاليه هاي وحلو لجيدا مسلمين إن لو قد قف مبتدعة أما فتانة أما خيانة لو marka saas haddii loo sheego waxay noqonaysaa qurba ila allah waa wax alle loogu dhowaanayo laakiin dantu hadday tahay iskaas in la liido waxa weeye waa xan muxarama. ibnu rajab ayaa wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan oo mawduucan ku saabsan wuxuu yidhi iclam ana dikra alinsaani bima yakrahu muxaramun ida kana almaqsuudu minhu mujarad adam. ogow insaanka wixii laga sheego oo wax uu necab yahay in laga sheego marba haddii dantiisu tahay in asaga la dhaliilo waa xaaraam. فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين لكن هذه مصلحة جود أمد أوجرت أو خاصة لبعضهم أما قبل كود مصلحة خصيدة أي كجرت وكان المقصود تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم دانت اللو شيغا أنا أي تهي الندى اللو شيغايو إن مصلحة داس أن لقارو قف كان دليشي ساندان لقالهين لبشر دي وحي لقاهلو حن نغن مايان marka koobaad sheegisteeda maslaxa ku jirta ama dad guud ay ugu jirta ama dad khaas marka labaadna danta loo sheegayo wax kale ma ahan dantaas in la gaaro la raba markaas ayay banaana kartaa walaxantu. wuxuu leeyahay wa bi hadhihi niyyati yakunu ar-radd ala al-mukhalif hada al-macnihiisu yahay marka la soo aruuriyo niyadaas baa lala imaanaya marka la radinayo qof aad isleedahay sharcigii uu khilaafay markaad radinaysid waa in istiraahdaa diinka ilaahay ilaali dadku yay lumin munkarka raddi xaqa sug oo u gargaar baadilka meesha ka saar laakiin haddii hadafku yahay kaas hoos u dhig inuu jaahil yahay muuji dadku in kale ha dareeman inuu xun yahay haddii hadafku uu noqdo waa muxaram. kitaab wuxuu leeyahay la yiraahdo alfarqu bayna an-nasihati wat-ta'yir farqa u dhaxeeya nasiixaynta iyo ceebaynta waa kitaabkaas uga hadla. waxaa jirta meeshaan mas'ale aad muhiim u ah oo qof kastoo muslima la gudboon inuu barto waa maxay kafaaratul ghiiba. qof hadduu xan ku dhaco la yimaado maxaa xantaas u ah kafaara gud iyo dembi dhaaf. culammadu laba qowl ka leeyihiin qowlka koobaad waxa weeye laa budda min alistixlaali miman igtaabahu almughtaab. wuxuu leeyahay qowlka koobaad waxaa qasaba qofkii la xantay in loo tago leeraaniyo waa ku xantay weliba loo cadeeyo wixii lagu xantay saas iyo saasaan ku iriye iska kay cafi waana qowlka ay a'immadu u badan yihiin imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo abu xaniifa saddexdaasu saasay caddeeyeen. imaamu axmedna riwaaya mukharaja ayaa jirta oo sidaas tilmaamaysa laga fahmi karo sida uu madaariju saalikiin uu ku soo raray ibnulqayim aljawsiya waana sida ay rajaxeen imaamu alghazali iyo qurtubi iyo imaamu nawowi iyo keyrkeed waana midda la hubo qofkii hadduu saas sameeyo inuu beri ku noqonayo oo dembigii qiibada uu uga dhacayo waa la hubo hadduu saas sameeyo. daliilkeeduna waxa weeye qowlu nabiyi sala allahu alayh wasalam man kaanat cindahu madlamatun liakhiihi min cirdin aw shayin falyataxalalhu minhu alyawm qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham. qofkii ay agtiisa ahaatay madlamo dulmi walaalkii uu u geystay oo cirdigiisa iyo sharaftiisa uu ku dhaawacay ama shay kale ah ha ka xalaashiisto maanta intaan la gaarin waqti aan diinaar iyo dirham midna oolin. haddii uu xasanaad leeyahay xasanaadkiisaa ku qaanbixi doonaa hadduusa xasanaad lahaynna dembigii dadkii uu xantaa lasoo qaadi doona markaas dusha laga saari doona. xadiidkaasna waa saxiix albukhaari marka waa daliil sariixa oo mas'aladaas tusinaya. qowl kalaa jira oo imaamu axmed riwaayatiisa ah shaykhulislaam ibnu taymiyana uu rajaxay iyo ibnulqayim aljawsiya iyo ibnu muflix iyo safarini iyo culamo kale. qowlkaas wuxuu leeyahay qofka inaad u tagto qasab maahan ee waa inaad tiraahdid ilaah u dembi dhaaf qofkii aan xantay oo u istikfaar dalabtid oo meelihii aad xumaantiisa ka sheegtayna haddii ay dhici karto majaalis caama haddaad ku xamatay oo kaleeto inaad tiro ninkaas waa wanaagsan yahay dadku khalad kama marree anaa qaldanaayo ninkaas waa saxan yahay adoon asagii u tegin saas inaad beri ku noqonaysay sheegeen culummadaas waxayna u daliishadeen usuusha islaamka oo guud wax ka mida
oo waxay leeyihin qofkan in loo sheego leeraa waa ku xantay saasaan ku idhi qulubta isnacaysa waxaa laga yaabaa inaadan dibdaba isu salaamin asagiina xumaana u kordhayso oo awal haduusa ogeyn qalbigiisu xumaan ma dareensanayn waa la xantay maba gaarinba laakiin markaad u sheegto markaas inuu jirrado saas horta suurtagal ma kaa aheyd alla cadow ila joogaata dib dambena loo kala go'o dhibaata imaan karta marka wuxuu leeyahay dhibaatadaas iyadoon imaan qofkan xoola lagama sidee in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo oo wanaagaad u gashay awalna xumaanaad u gashay waa labadaas waa isu dhigmaan saasay leeyihiin waa culummo kaleeto almuhim midda hore waa la hubaa qofkii sameeya inuu beri noqday midda dambe laakiin lama hubo mas'alo kale meeshan wuxuu sheegay ibnulqayim calayhi raxmatullaahi aafaatu lisaani ithnaan wuxuu leeyahay carabku laba balaayo ayuu xambaarsan yahay assukuutu waalkalaam in la aamuso ama la hadlo labadaasuba wuxuu yidhi waa aafo iyo balaayo say u yihiin qofka mar waxaa looga baahanya inuu hadlo xaqa sheego baadilka caddeeyo radiyo munkarka uu reebo macruufka amro mar saasaa looga baahanya marna waxaa loo baahanya carabkiisa ceshado aamuso carabkiisa xabiso labadu waa laba aafo haddii la waayo waqtigii loo baahnaa ahlulxaqu labadaasi u dhexeeyaan oo markii loo baahan yahay in la hadlana waa hadlaan markii loo baahan yahay in la aamusana waa aamusaan marka labadaas aafo ilahay inuu kaa caafiyo saasaa ah dariiqa loogu talagalay carabka in loo adeegsado mas'aladaas isagoo tilmaamaya ayaa imaamku wuxuu leeyahay wayustaxabu dabdu lalsinati wa xifduhaa waxaa la sunneeyaa carabka in loo taliyo la dabdiyo wa xifduhaa carabyada in la ilaaliyo waaliqlaalu min alkalaam hadalka in la yareeyo ilaa fii maa yacnii wax ku quseeyo ama adduunkaaga ku tacalluqa ama aakhiradaada mooye walaa budda minhu oo aan lagana fursa karin oo si kale aan lagu gaari karin dantaas in la hadla mooye wa afdalu min asamti aamuskana waxaa ka fadli badan ijraa'u lalsinati carabka in lagu dureeriyo bimaa fiihi nafcu ligayrihi wixii nafci uu ugu jiro ummadda kale oo qofka hadlaya aan ahayn walintifaacu linafsihi iyo wixii asaga nafci ugu jiro markaasuu miithaaliyey wixii dadka nafcigu ugu jiray iyo wixii asaga nafci ugu jiray mithlu qiraa'ati alqur'aan qur'aankoo la aqriyoo kale wa tadriisi alcilmi cilmigoo dadka la baroo loo daraaseeyo wadikri illaahi tacaala ilaahay xuskiisoo la badiyo waalamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar wanaagoo la amro iyo xumahoo la reebo waalislaaxi bayna annaas iyo dadka dagaashan oo la heshiisiiyo oo maslaxadooda laga shaqeeyo almuhim marka carabku waana shar badan yahay waana khayr badan yahay haddii khayrkiisa la adeegsado shartiisana laga digtoonaado waa xibin kuu hogaamin karta khayrka haddii la fasaxana balaayo badana ka timaada waxaan ku gebangabaynayaa darsiga kan culummada islaamku waxay sheegeen hadalka saxda ahu waa wixii 4 shardi laga helo shardiga koowaad an yakuuna alkalaamu lidaacin yadcuu ilayhi waa inay jirto baahi keenta in la hadlo baahidaas ama ha ahaato jalb nafc manfaco la soo jiidayo la keenayo aw dafcu madara ama xumaan la difaacaya ha noqoto shardiga labaadna an yakuuna biqadri alxaaja intii baahidu la ekeed inuu hadalku la eg yahay oo uusa ka siyaadsanayn shardiga saddexaadna waxa weeye an yakuuna alkalaamu fii mawdicihi inuu hadalku meeshii ku habbooneed qofkii ku habboonaya ku hadlay waqtigii ku habboonaya lagu hadlay sidii iyo qaabkii ugu qurxonaya loo soo bandhigo shardiga afaraadna waxa weeye an yatakhayara alalfaad almunaasiba lilmaqaam inuu kala doorto lafdiga uu ku hadlaayo oo hadal qorxoon uu doorto waxaa jira qofkii asagoo xaq sheegaya inuu si qurux badan u cabiro marmarna asagoo xaq sheegaya si foolxunta u cabiro uu dadkii la xaraaraado marka inuu qurxiyo cibaaradiisa oo uu carabkiisa mar walba waardiyeeyo 4 shardi hadalkii laga helo ayaa hadal saxa ah inta kalena waa in laga aamusaa marka intaas ayaa darsigu maanta ku egaya wasali allahuma wasalim calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin